oo iskugu soo baxay goob ku taala koonfurta magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen inay si weyn uga cabanayaan xukunkii maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex ay ku riday macalin Cabdiqaadir Nuur Maxamuud iyo waliba abwaan Baashi Xasan Maxamed nimanka xaqdarada lagu xidhay ee aan maxkamadeeda ilaa bigininkii ilaa iyo markuu dhamaaday anigu shakhsiyan aan taagnaa iyo dad badan halkan jooga ee loo soo macmalay kiiska aan jirin ee beenta ah ee markii ugu horeysay maxkamaddii ugu horeysay ay tiri nimankaasi dambiilayaal ma aha si xaqan ay u qaaday markii dambana laaluush iyo lacag iyo madaxtooyo loo sheegtay waxaanu leenahay waanu ka xunay weerka casban ku xidhanahayna Cabdiqaadir iyo aabahay abwaan Baashi Xasan oo dulmi lagu xukumay waxa weeye dadkii la xukumay ee nusmaliya kiyo dheeraadka lagu xukumay dadkoodii ba halka taagan malacagti waxa laga dhaxbaaray xubba weyniyada iyo doorashadii waxaan ka yaaban oo iga yaabiye aniga eeg 600 iyo 65 kun oo dollarka Mareykanka magtoodi markaan xalay xisaabiyay waxay noqotay 125 nin iyo naag ayay magtoodi naga rabaan mana hayna xiradeedana kuma jirto labada ninada yar yar ma hayaan laga maleelayo Badri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa